Hi guys, assalaamu calaykum. Waa anigu Cabdifataax Ibraahima xagga nagala socotaan waxa weeye Somaltech. Okay, tan casharka ugu gudagelin waxaan ka codsanaa channelka dadka cusubtay inaad subscribe saarto kadibna aad jareska furato si ay ku soo gaaraan dhammaan casharadan sameeyno aan waxba u miss karaynin. Okay, maanta waxaan ka hadli doonaa cashar aad u muhiima. Okay, waxa weeye casharkan wuxuu ku saabsan yahay Linux-ka. Okay, Linux-ka waan ka soo hadalnay waxa uu yahay iyo operating systems kale caalamka ka jira waxa uu kaga duwan yahay. Okay, haddaba waxaan ka hadlaynaa wax loo yaqaano file system hierarchy standard. haddaba file system hierarchy standardku maxaa uu yahay? Okay, casharkan ayaynu ku eegi doonaa. Linux-ka marka la joogo waxaad arki doontaa oo qofku isweydiinaya markuu Linux-ka ku cusub yahay markuu arko dhammaan directories kala duwan. Directories waan soo sheegnay waxa uu yahay. Linux-ka marka joogno directories waan isticmaalnaa halkan ka isticmaalo folder markaan joogno Windows-ka. Okay, haddaba directories waxaad arki doontaa kala duwan baad ku arki doontaa. waxaad arki doontaa root, waxaad arki doontaa bin/bin, ma garata waxaas oo dhan baad arki doontaa. haddaba waxyaabahaas waxa ay yihiin ama file system hierarchy standardku waxa weeye file system hierarchy standardku waxa weeye waa qaab loo habaynayo folderska ama directorieska oo Linux ku samaysan yahay ama built-in ku ah macnaha shayadii ku jiray Linux-ka ayaa maxay hayday loo sameynayaa ama lagu define garanayaa directorieski qaab structure ahaan loo sameeyo. Okay, haddaba waxaynu eegi doonaa directory-ga hadda si 1993 baa la soo bilaabay version-kii ugu dambeeyay 3.0 baa la dhahaa. marka distros-ka kala duwan aad isticmaalaysid file system-kooda ama file hierarchy standard-kooda wuu kala duwan yahay. Okay, marka distros-ka inta badan waxaynu soo qaadan doonaa kuwa ugu muhiimsan ee ugu basic garaysan ee dhammaan distros-ka oo dhan ay wada leeyihiin. Okay, waxaanu eegi doonaa bin iyo /bin sbin. Okay, binku waxa weeye waxa loo soo gaabiyay ama u taagiyay waa binary. Okay, binary-ga waxa weeye waa shayada executable-ka ah ama qofka user-ka isticmaalaya uu doonayo mostly programs uu run garanayo ama commands-ka uu isticmaalayo halkay ku jiraan ee lagu kaydiyo weeye. tusaale ahaan waxaa ka mid ah command-ka loo yaqaano cat oo concatenate loo isticmaalo iyo in lagu akhriyo tags file ay wax ku jiraan iyo sidoo kale ls-ka ama list la sameeyo. Okay, haddii aad baadho oo kale waad arki doontaa. Okay, sidoo kale waxaa jirta sbinka iyo binku waxay ku kala duwan yihiin. sbinka waxaa loo isticmaalaa ama lagu ku jiro essential u yahay booting system-ka ama programming-ka mounting-ka marka la sameynayo. waayo marka la joogo Linux-ka xagga la sameeyo ma garanaysaa daatooyinka maxay shurikin oo kale waxaas iyadoo waxa la sameeyo waxa loo yaqaan mounting oo waxaan ka arki doonaa xagga dambe mounting-ku waxa uu yahay. Okay, waxaa ka mid ah bootska. bootku waxa weeye shayga saamaxaya ama soo kicitaanka computerkaaga soo kacaya ayaa boot loo yaqaanaa. waxaana soo saara shay boot loader loo yaqaano oo ka mid ah 7 shay aan soo sheegnay maxay ahayd Linux-ku uu ka koobnaa. haddii aanad soo arag waxyaabo uu Linux-ku ka kooban yahay casharkii kan ka horreeyay ayaad ka eegi doontaa. Okay, marka bootku waa shayga maxay ahayd soo kicinaya ama process-ka uu soo kacayo computerkaaga. Okay, iyadoo uu saamaxay waxa loo yaqaana boot loader-kii tusaale ahaan kale kernel-ku waa qaabka ka shaqaysiinaya Linux-kaaga ama maskaxda ka shaqaysiinaysa Linux-kaaga ayaa loo yaqaanaa kernel. Okay, waxaa ka mid ah etc/etc shayga loo yaqaan ama directory-ga loo yaqaan file hierarchy standard-ka ka mid ah waxa weeye ay ku configurations-ka dhammaan uu qofku sameeyo ama operating system applications ka oo dhan ay ku jiraan. tusaale ahaan kale haddii aad qofka user-ka uu wax bedelo oo kale xagga lagu kaydinayo hadduu user wax ka bedelo hadduu user wax ku daro hadduu group wax ka bedelo configuration haddii uu sameeyo dhammaan xagga ay tegaysaa waxaa loo yaqaanaa etc ama /etc folder-ka loo yaqaano ayay tegaysaa. Okay, waxaynu eegi doonaa directories-ka loo yaqaano libku waxa weeye waa libraries-ka macnaha waa shared libraries-ka ay share garanayaan binka binary-ga iyo maxay ahayd /binku macnaha wixii programs loo baahan yahay ayaa laga helayaa xaggan macnaha shared libraries-ka haddii wax soo import garanaysid iyo haddii kaleba. Okay, sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaano homeku waxa weeye tusaale ahaan kale qofka user-ka ah ama user-ka tusaale ahaan user-ka aan walnay waa sanskar markaan soo geliyo wuxuu leeyahay home buu leeyahay. homekaas waxa weeye dhammaan wixii aan qabanayo oo dhan waa halkay ku jiraan ama halkaan ka sameynayay ayaa home loo yaqaano meeshii holding ku sameynaysay haynaysay. Okay, sidoo kale waxaa jira mid loo yaqaano opt ama option
external directory wax loo yaqaano haddii aad macnaha ku shubaysid software oo kale tusaale ahaan kale waxa laga yaabaa Linux-ka inaan ku isticmaalayo editors ama aan ku isticmaalayo Python ama programming language kale aan ku isticmaalayo sidaad ugu shubaysid shayga ku sahlaya ama optional softwareska waxa loo yaqaanaa OBT. Okay, waxaan ugu xigi doonaa proc/proc ama /tem oo kale proctu waxa weeye essential files ayaa loo isticmaalaa mostly qof dad badan oo expertisa waxay sheegeen /proc hadii aad doonaysid oo kale in maxay hayday chapter gaar ah lagu dhigto. Okay, haddaad gasho website-ka Red Hat oo kale tutorialski samayso wuxuu ku oranayaa procta waa directory balaaran marka wuxuu u baahan yahay in cashar dheeraad si keligii laga sameeyo. Okay, /proc waxa weeye waa shayga retrieving-ka iyo maxay sending information-ka inuu ka soo qaado kadib una gudbiyo kernel-ka weeye. Kernel-kuna waxa weeye waa shayga ka shaqaysiinaya operating system-keena marka waxaan oran karnaa waa shay aad u muhiim ah. waxa jira temporary. Okay, tusaale ahaan kale markaad sameynayso maxay shay aad qabanaysid ama software aad ka shaqaysiinaysid programmeska waxa loo baahan yahay inaad faylada qaar aad u create garaysid si temporary faylka qaar waxaad samaysanaysaa si temporary uma baahnid sida uu Windows-ku u leeyahay temporary file ama temporary file. Okay, marka temporary directory. Okay, marka temporary-gan wuxuu ka saamaxayaa dhammaan waxyaabihii temporary directories-ka ahaa ee aanad u baahnayn ee hadhow iska clear garanaysa ama iska delete garanaysid inaad ku maxay ahayd kaydsato. marka temporary directory-ga mostly waa iska delete gareeyaa waayo 10 biloodba ama maxay dhowrkii biloodba dhowrkii weekba marba la iska saaraa waayo sababta oo ah waxa ku ururaya temporary files-ka oo dhan. marka casharkan maanta wuxuu inoogu ekaa file system hierarchy waxa uu yahay iyo qaab kamida directories-kiisa subdirectories ku jira loo isticmaalo ama ay yihiin ay maanta sharaxayn. Okay, insha Allah casharka kan ku xigeen ku kulmi doono waxaynu iskaga tagi doonaa sidan iyo khayr marka description-kan soo dhigi doonaa casharkan oo dhammaystiran xagaad ka helaysid marka intaas baa casharku inoogu joogo. Assalaamu calaykum.